munaasabadan waxaa loogu magacdaray soo bandhigista waxqabadka iyo dowlad wanaagga ee wasaaradda maaliyadda ee dalka waxaana munaasabada soo qabanqaabiyay wasaaradda maaliyadda ee dalka uu horkacayo mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wasiirka hogaamiye wasaaradda maaliyadda. Munaasabada waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xubno ka socday labada aqal ee baarlamaanka federaalka xukuumadda iyo waliba sidoo kale qaar badan oo ka tirsan shaqaalaha rayidka ee dowladda waxaana mas'uuliyiinta ka qayb gala dhammaantood ay xuseen in wasiirka maaliyadda ee dalka uu ku guuleystay bixinta mushaharaadka shaqaalaha dowladda u shaqeeya tan iyo markii xilkan loo magacaabay. wasiirka maaliyadda ee dalka mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa isna waxa uu xusay in dhibaato adag la soo maray balse waxa uu intaas ku sii daray in wasaaraddiisu ay ka shaqeysay wax badan oo lagu horumarinayo nidaamka maaliyadda ee dalka si markaasi hay'adaha lacagta iyo waliba sidoo kale bankiga adduunka ay si wadajir ah u aaminaan dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed. waxaan markaa gaar ahaan ugu mahadcelinayaa ciddii noo fududaysay garbahana qabatay gacmahana qabatay ee na tukulisay ee na guide garaysay kowka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labaad ka yahay ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre wasaaradda fara badan oo aad noola shaqeeyay ayaa jira ma soo koobi karo marka intaan mid ka tagi lahaa ama mid ka tagi lahaa ama mid kale ka tagi lahaa waan u wada mahad celinayaa. waxaa xusid mudan bangiga dhexe oo calooshayada og calooshayada iyo ubacdayada ayuu ogyahay Central Bank wuxuu waana hay'ad madax bannaan waxay idin sheegaan wax ku qaata aydi sheegaya maalintii 31 ilaa iyo mar dambe habeennimadii annagoo ka cararayna 12 iyo 1 minute inay soo gaadhaan xafiiska Central Bank fadhiyay wasaaradda maaliyadda inta ugu mucroon iyo gudoomiyaha xigeenka xisaabtan isla xidhiidhay waxaan xisaabta isku xidhiidhnaa waxa weeye ballan baan qaadnay adduunkaan ballan u qaadnay waxbaan qaban karaynaa baan nidhi waxaaya qabtaa la yidhi wax waliba hadal ma wax xisaabta maalinta haddaan xidhi weyno aroorta dambe way muuqanaysaa dabeetana waan ka dhacnay weeyaan wixii lagu dhibaat ka soo bixi weyday maalinta aniga iyo odayaasha Central Bank iyo gabdhaha Central Bank waxaan isla soo xidhnay xisaabtii anagoo diyaar ah kuna faraxsan inaan arrimi la noo yimaday ka soo baxnay oo dhammaystiray inaan idhaahno dhaqaalaheennii waa kordhay waana wanaagsanaaday waxyaalo fara badanina way naga dhiman yihiin inaan meel fiican soo gaadhnay waxaan sheegnay meeshii aan doonaynay inaan gaadhno waataana dinadhi budgetka dalku saddex uu qaybsamaa saddex group way saddex qaybood qaybi waxa weeye qaybta wadanka gudihiisa ka soo baxaya dakhliga gudaha aad ka keenayso waana ka ugu muhiimsan weeye qaybina waxa weeye waxaan kab ku sheegno socodsiinta dawladda wasaaraduna ka mid yihiin hadaad kari weydeen aad iska aad dakhliga ku ka bargaray ama ku daboolo cid kale oo budget support iyo xogsiinaysa kab ku siinaysa taasina waa qaybo waa dul u malayni inta dawladda la hadasho baad u malayni in waxyaalo ku soo gaari doonaan ta saddexaadna waa mashaariicda weeye mashaariicda marka ka ugu muhiimsan waxaad arki kartaa inuu yahay ka gudaha ka soo galaya inuu yahay ayaad garan kari kaasoo baana isha lagu hayaa. mas'uuliyiinta munaasabada ka qayb galay ee hadallada ka jeediyay waxaa ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha dalka mudane Xasan Cali Khayre oo isna ka hadlay in xaalad adag oo la soo maray awgeed wali ay jiraan dhibaatooyin badan loona baahan yahay in si isku mid ah loola dagaalamo. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu hoosta ka xariiqay in musuqmaasuq adag uu jiro walina waxa uu sheegay in loo baahan yahay in aad loola dagaalamo. maanta waxaan rabaa inaan idin cadeeyo ma joogno meeshii la rabay markii la yiraahdo amaanada wali waxaan aaminsanahay musuqmaasuq baahan inuu dalkan ka jiro wali waxaan aaminsanahay xoolihii loogu talagalay qasnada dawladda inay soo gasho isbitaalada iskuulada lagu dhiso inay ku baxaan meel cidla
weli waxaan aaminsanahay inaanan runta ka sheegin inaan musuqmaasuqa la dagaalno sababtoo ah haddii ganacsatada iyo dhalinyarada iyo dumarka iyo qaybaha kala duwan oo bulshada cid walba aanay qayb ka qaadan in musuqmaasuqa lala dagaalamo wasaaradda kaligeed lama dagaalamayso musuqmaasuq haddii wasaaradda maaliyadda iyo turbataariyaduna aanay dad soo xirxirin u soo qaban musuqmaasuq lagu soo qabtana waxay u sheegayaan shacabka Soomaaliyeed been waayo musuqmaasuq la dagaalami maayo laakiin waxaan idin cadeynayaa in xukuumaddu ay geysay golaha shacabka sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo la soo ansixiyay oo noo dhiman yahay in la geeyay aqalka sare baarlamaanka aan uga mahad celinaynaa oo aan rabno inaan dhisno guddi madax bannaan oo la dagaalamo musuqmaasuqa si ammaanadu ay u sii hagaagto ganacsatada Soomaaliyeed waxaan leeyahay laakiin si loola dagaalamo musuqmaasuqa fadlan jiheeya dawladda jiheeya xukuumaddiina wasiirada ku jira u sheega halkaas laga baxo haddii iyaga aad ka qabtaan walwal noo imaada anaga madaxweynaha haddii anaga walwal naga qabtaana noo sheega waxaad tiraahdaan dalkeena idinku aamini maayo sababtoo ah haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban dhaqaalaha wax lagama qaban karo haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban amniga wax lagama qaban karo haddii aan musuqmaasuqa wax laga qaban sharaftii iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed lama soo celin karo halkan marka dhibaatadana haysata waxay tahay xor ma ahaan karno haddii aanan helin dhaqaale nagu filan dhaqaale nagu filanna ma heli karno haddii aanan ku soo noqon hay'adaha dhaqaalaha adduunka hay'adaha dhaqaalaha adduunkana kuma soo noqon karno haddii aanan xal u helin dhowr arrimood inaan la dagaalano musuqmaasuqa inaan dhisno wasaaraddeena maaliyadda iyo inaan keenno xal lagu xalliyo deyntana la kulleeyo waa munaasabadii ugu horeysay ee waxqabadka iyo sidoo kale dowlad wanaagga wasaaradda maaliyadda waxa loogu yeero ay ku qabatay magaalada Muqdisho waxaana munaasabadan badi dadka ka qayb galay ay ahaayeen shaqaale u shaqeeya dowladda iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda la fahanteeda Cabdi Fataax Xasan Kalgacal